السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرون اليوم مدنيال waxaad ku soo dhawaateen warbixii dalka degmada iyo waliba adduunka naga soo gaaray habeenkani caawa xagga telefishinka. qodobada ugu doorkan warkan xagga telefishinka waxaa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Umar Geele ayaa maanta ka guddoomay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalka Itoobiya Tekeda Alimo afarin soo gaarsiiyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Meles Zenawi. fanaanada caanka ee Soomaalida Saada Cali Warsame ayaa maanta soo gaadhay Djibouti waxaana ahaa hotel Sheraton ku qaabilay wasiirka warfaafinta Mudane Cali Cabdi Faarax. xagga wararka degmada kooxda xiriirka Soomaaliya ayaa maalinta bari oo Jimcaha kulan isugu yimid magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana ka wada hadli doonaan arrimaha Soomaaliya. xagga wararka caalamkana dalka Indonesia waxaa ka sii socda howlaha gurmadka lagu baadhigoobayo dadkii iyagoo ku jiray diyaaradda burburtay ee nooceedu ahaa Boeing 737. xagga wararka dalka Ciraaqna waxaa dib loo dhigay xukunkii daldalaada ah ee lagu xukumay Barzan oo walaalihiin Saddam iyo waliba Bandar oo loo riixay maalinta Axad ee soo socota. intaas waa warkii oo kooban haatan isagii oo dhan. bismillaahi raxmaani raxiim. warkii dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Umar Geele ayaa ka guddoomay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalka Itoobiya Tekeda Alimo afarin soo gaarsiiyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Meles Zenawi. afarintaas oo ahayd mid xambaarsan xaaladda dalka Soomaaliya waxaa madaxweynaha soo gaarsiiyay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Tekeda Alimo. kulanka yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo Mr. Tekeda waxa uu joogay oo goobjoog ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf iyo danjiraha Djibouti oo fadhiya caasimadda Addis Ababa dalka Itoobiya iyo waliba danjiraha Itoobiya u jooga Djibouti. kadib kulankaasi waxa aan wareysi aan la yeelanay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Tekeda Alimo. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Tekeda Alimo waxa uu sheegay in booqashadani ay tahay mid la xiriirta wada tashiga joogtada ah ee ay wadaagaan labada wadan ee Itoobiya iyo Djibouti ee ku aadan arrimaha gobolka. waxaana sideeyay farin qoraal ah iyo mid afkaba ah oo aan ka siday ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Meles Zenawi waxaana soo gaarsiiyay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalka Itoobiya Tekeda Alimo madaxweynaha Djibouti Mudane Ismaaciil Umar Geele. Djibouti iyo Itoobiya waxa ay wadaagaan xiriir joogto ah ujeedaduna waxa ay tahay sidii xal loogu heli lahaa arrimaha ka taagan dalka Soomaaliya. mowqifka dalka Itoobiya waxa uu yahay sidii xal waara loogu heli lahaa dhibaatada ka oogan dalka Soomaaliya. kadibna waxaan sidoo kale wareysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf waxa uu sheegay sida wasiirku uu sheegay booqashaduna waxay la xiriirtaa wada tashiga joogtada ah ee madaxda labada wadan Itoobiya iyo Djibouti ay wadaagaan gaar ahaan arrimaha gobolka. ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Meles Zenawi waxa uu madaxweynaha Djibouti soo gaarsiiyay Mudane Ismaaciil Umar Geele soo gaarsiiyay afarin xambaarsan xaaladda dalka Soomaaliya. annaga oo ka faa'iideysanayna munaasabadaas ayaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Maxamuud Cali Yuusuf waxaanu cabbirnay mowqifkayna ku aadan Soomaaliya waxaanu codsanay in Soomaalidu ay arrimahooda ku xaliyaan wada hadal. madaxweynaha Djibouti Mudane Ismaaciil Umar Geele waxa uu hadda jeel rajeynaya shacbiga Soomaaliyeed inay helaan nabad iyo waliba xasilooni waarta. waxaanu had iyo jeer aanu door bidaynaa ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf in wixii jira lagu dhameeyo wada hadal. beesha caalamka waxaanu ka codsanaynaa in ay gargaaraan shacbiga tabaaleysan ee Soomaaliya. Djibouti waxay had iyo jeer safka hore soo marinaysaa ayaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Djibouti wada hadal. runaantii waxaa la wada garanayaa dagaalku waqtiga uu bilaaban karo balse lama garanayo wasiirku waqtiga dagaalku uu dhamaan karo. waxaan had iyo jeer diyaar u nahay gargaarka shacbiga Soomaaliyeed. madaxweynaha Djibouti Mudane Ismaaciil Umar Geele waxa uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya Meles Zenawi u diray fariin maalmaha inagu soo foodalaya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf waxaanu xoojin doonaa dadaalka xagga diblomaasiyadeed. maalinta sabtida ee soo socotana waxaanu qaabili doonaa xogaha dawladeedka u qaabilsan arrimaha Afrika Janday Frais. waxaanu sidoo kale xiriir kala duwan aan la leenahay hogaamiyaasha wadamada Carabta. ujeedaduna waxay tahay sidii dalka Soomaaliya
lagu soo dabaali lahaa xasilooni iyo weliba nabad waarta waa sida hadalka u dhigay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf wakiilka hay'adda UNICEF u jooga Djibouti Dr. Aloyse Kamugaria ayaa maanta wasiirka dhalinta iyo isboortiga Djibouti Xasan Faarax Migil gaarsiiyay deeq qalab informatic iyo kuwa isboortiga isugu jira deeqdani waxaa la gaarsiin doonaa loo qaybin doonaa saddex xarumood oo horumarka bulshada oo ku yaala caasimadda Djibouti waxaana deeqdani ay qayb ka tahay barnaamijka lagaga wacyigelinayo dhalinta halista uu leeyahay cudurka qarniga dilaaga ee sidaaga isagoo farakooda ku haya geeska Afrika wasiirka dhalinta iyo isboortiga mudane Xasan Faarax Migil oo hadal gaaban ka jeediyay munaasabadii guddoonka qalabkaasi ayaa u mahadnaqay wakiilka hay'adda UNICEF u jooga Djibouti Dr. Aloyse Kamugaria waxaana uu sheegay in hay'adda UNICEF ay weligeedba ku dadaalto sidii ay u taageeri lahayd dhalinta waxaana uu dhalinta ugu baaqay in ay daryeelaan qalabkaasi oo ay ku fara adkaadaan geesiisa wakiilka hay'adda UNICEF u jooga Djibouti Dr. Mr. Aloyse Kamugaria oo isna hadal gaaban ka jeediyay munaasabadaasi waxa uu sheegay in deeqdan qalabka informatic iyo kuwa isboortiga isugu jiraan ay faa'iido u leedahay dhalinyarta gaar ahaan kuwa ku jira xarumaha horumarinta bulshada ee ku yaala caasimadda Djibouti waxaana Dr. Aloyse Kamugaria isagu sheegay in cudurka qarniga dilaaga ee sidaaga uu farakul ku hayo qaaradda Afrika kaasoo inta weyn saameeya dhalinta fanaanada caanka ee Soomaaliyeed Saado Cali Warsamax ayaa maanta soo gaadhay Djibouti Saado Cali Warsamax waxaa ku qaabilay Sheraton Hotel wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka ee Djibouti mudane Cali Abdi Faarax kulanka dhexmaray wasiirka iyo fanaanada Soomaaliyeed waxaa goobjoog ka qayb qaatay xogayaha guud ee wasaaradda warfaafinta agaasimaha golaha raadiyaha telefishinka ee Djibouti mudane Abdi Catay Abdi iyo waliba fanaanka reer Djibouti ee Maxamuud Xasan mid loo yaqaano Caws kolka horta waa idin salaamay adiga iyo dhammaan shaqaalaha telefishinka iyo raadiyaha Djibouti waa idin salaamay gaar ahaan waxaan salaamayaa wasiirka warfaafinta Cali Cabdi ilaahay ha sharfeeyo aad u qiimo badan yaan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa agaasimaha RTD-da afkiina ku hadlayaa guud ahaan waxaan salaamayaa shacbiga reer Djibouti aad u qiimaha badan leh madaxda reer Djibouti Djibouti horta waa dalkayga waan imid waan soo booqday muddo dheerna waan ka maqnaa waxaan doonayaa inaan barnaamij ka sameeyo waxaana arrintaa igu dhaliyay igu marti qaaday ninka fanaanka weyna Caws oo jiraaga ah marka sidaasaan mid saakaan soo degay dadka reer Djibouti marka ay maqlaan Saado Cali Warsame waxa ku sii jira maankooga oo ay xasuustaan hees qayb badan oo runtii أنا دنيا سني جنين وحنا وريه وحكم دعيس كاسي دوي قلب شعب كدرتين نقد قال هيس كاس محل كودليي نغور رمبل يو لقها مرة سوير هيس كاس وحى سمي محمد عبد الله عيسى سينجب أي سمي أبو أموينا وحنا نقول لي أنه وحنا كنا الله هاي نورد أمريكا يعني كنا الله هاي marka Ismaaciil Umar Geele waa madaxweynaheena ma aha madaxweynaha Djibouti oo kaliya waa madaxweynaha Soomaaliya oo dhan waa madaxweynaha kaliya aynu lahayn haddaynu nahay ummadda Soomaaliyeed marka waxaan maqalay in la doorashadiisa ay tahay marka waxaan nidhi taageerno oo maxay sabor garayno waxaan doonaynaa tusno dareenka iyaga kala gacaylka aanu qabno iyo qiimaha uu naga taagan yahay marka heestaas sidaasaan u qaadnay heestana haddaan muusiga lagu tumaynin way dadka way ka luntahay magaalada Rasaayada Djibouti oo cawda telefishinka Djibouti luqahan hal eray noqotay waxaa dawlad wadi kara dad waxaa matali kara daliiqan siyaasiya daweeye shacabkii ku dooraya nabadgal daweeye mahad celinayaa dadkii igala qayb galay ama iga taageeray Saado Cali Warsame fanaanada weyn caanka Soomaaliyeed
casuumadeeda aan u diray ee timaado magaalada madaxda Djibouti waxaan u mahad celinayaa dadkii kala qayb galay hadday mas'uuliyiin tahay hadday shicib tahay iyo hadday hoteelka weyn ee Sheraton tahayba kulanka dhex maray wasiirka xildhibaanada Soomaalida ka dhacay xafiiska wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka mudane Cali Cabdi Faarax waxa sidoo kale goobjoog ahaa fanaanka reer Djibouti ee Maxamuud Xasan Amigi loo yaqaano Aws oo isagu Djibouti ku marti qaaday fanaanada Soomaaliyeed oo ka timid Washington dalka Mareykanka inta saada Cali Warsamaha ay joogto Djibouti waxa dadweynaha reer Djibouti gaar ahaan dadka xiiseeya fankeeda ay soo bandhigi doontaa awisyo kala duwan xagga wararka degmada inka hadii aanu gudubnaho kooxda xiriirka Soomaaliya ayaa maalinta Jimcaha oo bari ah kulan isugu yimid doonaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana ka wada hadli doonaan arrimaha Soomaaliya waxaana sidaas shaaca ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda dalka Jarmalka Frank Walter waxaana shaaca ka qaaday xilli uu shir ka socdo caasimada Brussels ee dalka Belgium waxaana shirkaasi goobjoog ka qayb qaatay xubno ka socda wadamada Yurubta ergeyga Yurub oo qaabilsan horumarka Louis Michel iyo waliba wakiilo ka socda wadamada Britain Talyaaniga Sweden iyo waliba Norway kulanka ka qabsoon doona magaalada Nairobi waxa la isku soo qaadi doona arinta ku saabsan ciidamada nabad ilaalin ah oo loo diro dalka Soomaaliya waxa sidoo kale la isku soo qaadi doona kulankaasi sidii midowga maxaakiimta looga qayb gelin lahaa wada hadalka nabadda waa sida hadalka u dhigay madaxa diblomaasiyadda dalka Norway Jonas Gahrestor xagga wararka caalamkana dalka Indonesia wali waxa ka sii socda hawlaha gurmadka ee lagu baadi goobayo dadka iyagu ku jiray diyaaradii iyada Norway waxa Boeing 737 dalka Indonesia waxa wali sii socda hawlaha gurmadka ee lagu baadi goobayo dadka iyagu ku jiray diyaaradii burburtay ee Norway waxa Boeing 737 diyaaradaha ciidamada militariga iyo kuwa rayidka ayaa dul heehaabaya dhirta iyo waliba beeraha ku yaala galbeedka wadankaasi wararkuna waxa ay sheegayaan in roobab dabaylo wata in ay arqaladeeyeen hawlaha gurmadka ee ka socda goobahaasi mas'uuliyiinta militariga ee ku howlan abaaritaanku waxay sheegeen in ayna joojin doonin howlgalladooda oo ay sii wadi doonaan sidii ay u heli lahaayeen dadka iyagu ku jiray diyaaradaasi waxaana la sheegayaa in diyaaradaasi ayadu ay saarnaayeen dad gaaray ilaa 102 qof balse nolol lagu gaaray ilaa dad gaaraya 12 qof dadkii ku jiray ka diyaaradooda eheladoodii ayaa iyagu wali hortuqan gagada dayuuradaha oo sugaya dhageysanayna telefishinada iyo waliba raadiyaasha dalka Indonesia wixii warar ee ka soo baxa dadkii iyagu saarnaa diyaaradaasi Norway waxa Boeing 700 iyo waliba 737 xagga wararka ka imid soo gaaray dalka Iraq waxa la sheegay mas'uuliyiinta xukuumadda Iraq waxay shaaca ka qaadeen in dib loo dhigay xukunkii dilka ahaa ee lagu xukumay Barzan oo walaalihiin Saddam Hussein iyo waliba Bandar sidaas waxa shaaca ka qaaday Baha al-Araji oo xildhibaan Shiici ah oo u dhow ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Nouri al-Maliki sababtuna waxay tahay cadaadis iyo waliba ambaarin kaga yimid mas'uuliyiinta Iraq beesha caalamka iyo waliba hogaamiyaasha wadamada Carabta kadib markii la dalbalay Allah u naxariistay hogaamiyihii hore Iraq Saddam Hussein oo soo la dalbalay maalintii Sabtidii la ciidayay munaasabada Ciid al-Adha balse wararku waxay sheegayaan in waqtiga la daldali doono Barzan wanika ay walaalihiin Saddam Hussein iyo waliba Bandar laga dhigay maalinta Axad oo soo socota waxaana sidaasi shaaca ka qaaday oo sheegay Baha al-Araji oo min Shiici oo dhow ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Nouri al-Maliki daawadayaal intaas waxay nagu idil warwixii dalka degmada iyo adduunyada bay naga soo gaaray intan dib u kulmi doono dhammaantiin baa meel ka soo naga daawansan waxaan iga tegaynaa nabadgelyo iyo amiina Allah wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh